daawadayaal ku soo dhawaada ganacsadaha Jabuutiyaanka ah ee shirkadda isgaarsiinta ee Sam Cable ina oo Saciid oo ay ka dambayso ama faqalalada arrimaha halista ku ah amni darrada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda dhibaatooyin fara badan ku haya isla markaana ganacsadahan ina oo Saciid oo ay ka dambayso marwada madaxweynaha Jabuuti Khadra oo ilmaadariyihiin ayaa u soo isticmaashay yarkan gacanyaraha oo ah ina oo Saciid jiidaya shirkadda isgaarsiinta ee doonaysa in isgaarsiinta Soomaaliland laga maamulo dalka Jabuuti oo ay u yeeriyaan xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha Jabuuti iyo marwada dhalashahan ka soo jeeda beesha Saac Muuse ee madaxweynaha Muuse Biixi Cabdina dabada ka waday ama qayb weyn ka lahayd qaabkii uu ku soo baxay Muuse Biixi Cabdi sadahan Jabuutiyaanka oo dhinac ahaan ay Muuse Biixi Cabdi isku qabiil yihiin aan weyn ku lahaa musuqmaasuqii ka dhacay doorashada Soomaaliland ee loogu cumaamaday Cornel Muuse qaba madaxweynaha Jabuuti ayaa doonaysa in ay maamusho Soomaaliland oo ay mataanayso madaxtooyada Soomaaliland iyo madaxtooyada Jabuuti taasoo madaxweynayaashii hore ee soo maray Soomaaliland Abdiraxmaan Tuur Allah u naxariistay iyo cigaal Ilaahay isagana u naxariistay iyo madaxweynihii Jaahariyaale iyo madaxweynihii kale ee ku xigay ee madaxweyne Silaayo ee hadda xilka ka dagay ayaa gabi ahaanba waxa ay si weyn isu hayeen siyaasadda ee madaxweynaha dalka Jabuuti isagoo oo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele si weyn uga soo horjeeda qadiyadda madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana aaminsan ama inta badan ka shaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidii la isku keeni lahaa wixii la isku oran jiray Soomaali weyn sidoo oo kale waxa uu Ismaaciil Cumar Geele calqalad waaweyn ku haya inta badan shacabka reer Soomaaliland isagoo oo aan ogolayn madaxbannaanida Soomaaliland hase yeeshee waxa la yaab ah haweeneyda uu qaba madaxweynaha Jabuuti ee kan yar ee gacanyaraha ee shirkadda isgaarsiinta Sam Cable ay doonayso in ay ka maamusho isgaarsiinta Soomaaliland gada buursi xaq leeyahay xaqiisa waa inuu dhacsada isaaq buu ku leeyahay xaqiisa isaaq waa inuu ka dhacsada waa inuu qoriga qaata waa inuu sidii loo dagaalamay ula dagaalamaa hadii wanaag la waayo askari baa la keenay war Muuse Biixi waynu wada naqaanaa wuxuu ka soo jeedana waynu naqaanaa wuxuu ku soo galay meeshana waynu ognahay dirayska uu sitana waynu ognahay Muuse Biixi hadduu ka tanaasuli waayo askarinimada ha ogaado inuu godkiisa ugu soo galay olol iyo holac maaha awdal state ka bilqi mayso wadayaal waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa sadaha ina oo Saciid ee gacanyaraha u ah haweeneyda soo horjeeda walaha balse maalmihii u dambeeyay ayaa si weyn shacabka reer Soomaaliland waxay farta ugu fiiqeen ganacsadahan Jabuutiyaankaana isla markaana waxa laga shacabka reer Soomaaliland qaybta social media ay si weyn uga hadleen oo ay ka digeen hadii uu arrimaha siyaasadda iyo xukuumadda uu hogaamin doono madaxweynaha 5 sano loo doortay ee Muuse Biixi uu uga faa'iideeyo ama khayraadka dalka Soomaaliland uu gacan geliyo ganacsadahan Jabuutiyaanka ee beeshiisa ah taas ayaa Muuse Biixi waxay aastaan ama khatar ku noqon doontaa xukuumaddiisa hadii Soomaaliland lagana maamulo dalka Jabuuti ee halkan ayaan ku soo gudbinaa xildhibaano iyo dad ka mid ah gobolka Awdal oo ka hadlay ganacsadahan arrimaha nabadgelyada darrada ka wada Soomaaliland waxa kaloo jira nin oo Saciid la yiraahdo isaguna leh keybilka iyo sigaarka royalka ee sunta ah oo ma garanaysaa isaguna xubnaha ugu waaweyn ee xukuumaddu
dabada ay ka soo riixayso ee dadka fangaraynaya ee qalalaasaha iyo buuqa iyo rabashka inuu abuuro doonaya waxa kale oo iyo buuq iyo rabash ay ka ridaan gobolkan Awdal bulshada reer Awdal guud ahaan reer Somaliland waxaan u iftiiminaynaa nimanka hantiilayaasha ah ee ganacsatada ah ee nimanka waaweyn ee mas'uuliyiinta ah in waxa ay ka shaqeynayaan ee gobolkan Awdal ay u joogaan ay tahay in buuq iyo rabash u dhaco ka bulshada waxaanu leenahay wabal hadda nimankaasi hoosna ha loo fiirsado waxa ay wadaana hal ogaado waa in si dhaqso ah ay uga hawl gashaa oo maasay xildhibaanku inuu iftiimiyo dadka wixii dib gaarsiinaya nimanka ganacsatada ay xildhibaanku ka hadlay anigu waxaan aaminsanahay sida iyagu u muuqdaani inay ku ekaadaan ganacsigo oo ay had iyo jeer iska daayaan dhibta shacabkan waa shacabkii wax ka iibinayeen waa shacabkii walaalahoodaha waa shacabka beritoole ku soo noqon doonaan anigu waxaan leeyahay walaalayaalow dhibta ka daaya dhibta idin ma qalmaana dhibta ka daaya arin yahay oo ka wada fadqalalo gobolkan Awdal iyo degmada Boora waa bulshada ka heleen ganacsiga ninka ganacsigii waxa ka reeban inuu siyaasadda ku dhex milmo way ka reeban tahay nimankaas waxay cadaysteen ganacsatadii inay siyaasi dhinac saaraan siyaas ganacsatada tiino rag waaweyn oo muddo kale oo Somaliland ka ugu ictiraafsan baatiin doorashadana way dhamaan ganacsigiina u meel dayaan leeyahay nimankaasi ganacsigiina u meel dayaan leeyahay gaar ahaan ninka inuu siciid la yiraahdo ee hantidiisu dhulka daadsan tahay uga hantiisu dhulka daadsan tahay waxa leeyahay hantidaada u turo